السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا لمان اوفيشال ميديا ميلو بادو كجوكتان وانيغو امها سو دوادا waxaa barnaamijka inay wada maanta waxa waaye sidaad ogeedeen Sharma Boy ayaa shala hadlay laakiin maanta waxa soo hadlay oo ka soo daba hadlay maslax miday iyo wiilkiisa sidoo kale aadka loo eedeynayo oo Sharma u oonay dartiisa aad ogeedeen deeq darajo xaqu marbud dilaa xaqu feeraha ayuu ku soo dilaabay maanta wiilkii yaray afkiisa ayaa soo hadlay bar ilaahba in kugu dhaariyay Soomaali Maxamed inanka yariiska oo maanta wali hadda qaan gaaray oo daadi la xitoonaa 17 ama 18 ku jiro ninka weyn oo konton jirka ah bal inanka uu dhaartay oo uu rag u dirsaday oo ilaa Nairobi soo ceersanay oo wali uga sii daba tagay ilaa Garowe iyo Boosaaso dhulka Puntland uga sii daba tagay oo rabay inuu dilo ama uu silciyo ma ilaah baan kugu dhaariyay daar caliso mucunuga yariiska ah oo saddex jeer dhali karto subhanallah subhan war xishoodka xagee buu aaday war nin weyn baa tahay caruurtaada ayaa caruur sii dhali kara maanta inan yariis ah ayaad maanta bursatay Nairobi ka bursatay oo aadan ka xishoonin Sharma Boy ayaa shalay saa ogeed aad u ceersanaysay maantana waxaad ku dartay inan kaan yar sharafta alla ka qaad waa nacabaysay wallahi Soomaalnimo waad ceebaysay bal waxaan rabnaa inaan barnaamijka u sii gudbin bal ku soo dhawaada videogi wiilkii oo sharaxay qaabkii iyo sida wax u dhaceen iyo qaabka looga qaaday soo dhawaada سعلين دad waxaan rabnaa aan hayna horumar gaarno oo fankiina aan ku fiicanahay hadaba walaalkay maxaa kalifa waxaa kalifa horta Sharmaake inuu ninkaas horgeeyo uu ka codsado inuu dhaho walaal macaan oo ku bariya YouTube ka taa qaado fiiriya haduu YouTube muhiim u ahayd taa ku shaa wuxuu dhaxtaa YouTube ka qadaa ninka walaalkay amani gali ninkaas amaan gali nin dhalinyaro ah hamiya leeyahay ficina hanaga reebin wuxuu u leeyahay marka xaqiiqda dhabta aan sheego xaqiiqda dhabta ama wuxuu u leeyahay waxay ahayd anigu waan soo weerar shaati dawlad ayadoo la isticmaalayo wax report ima laga soo qorin sax waan soo wacay waxa uu dhahay halo ninkaas dacwo ka ah sida uu dhaqso badan waxaan rabaa ina kala noqoto dacwooyinka akoontigiisa ka xirtayna u soo celisay qali uu dhahay ani waxa ku dhahay anyway ninkaasi meel fog u jira ana xaq u leh wadanka joogo ma fahantay asaana wax walba Soomaalida qofkii wadada maray aweydiisay yaa qaldanna waa ku sheegayaan everything asa Facebook iyo wax walba soo bandhigay awood iyo xumaan iyo wax walba inuu dimacsan yahay ninkaasi hanoo heelinin una qaldan yahay su'aasha kale uu igu dhahay ninkaas kari waxay ahayd adima aniga isu dacwada waa may so ninkaan ka soo wareey dacwadiisa marka ninkaan xaliyo aateedada xalina ani marka already waxaan dareemay confidence oo hadii batan la xalina caadi waa ninka hada okay waay ku dhahay anyway maalintaas waxay ahayd 6 saac 7 saac meelahaas ahayd markay soo wacay waxa hadana la yimaado face to face xilli ay gaarayso waqtiga markuu ahaayeen hal saac weynimo la gal rabaa la yimaaday like qof walba meesha joogay uu og yahay markii la yimaado aniga wax oo reeli lahaa waxa waaye saddex nin oo askari ay yimaado hal nin oo labada yaqaan oo horkacaayo mi fahantaa or like that operation u socdo kala you know that anyway dadkaasna mission mar walba mission inay fuliyaan iyo hawlo kale way maahan report case iyo arimaas iyo dada ku xilsaaran oo loo gudbiya mar walba ma fahanti aniga wax ma dhicin wax qalad ma sameeynin anyway aniga waali mobilka li qaatay wixii oo dhan markii li qaato anu awood leh isticmaalaya waxa la sameeyay in aniga wato gaari li qaato dadku dhanaa is dhaxgalay Sharmaake waxa lagu dhahay saaxiibka hadii aragtay badbaadintiisa waxa u baahan tahay waxaan noo soo gudbi mi fahanti anyway uu gudbi akoontiga taa qaado dhahay waa haystaa mi fahanti uu dhahay waa baxaystaa akoontiga taa mi fahanti sida aad aragteen wiilkii yaray sida uu kugu sharaxay dabcan waad u jeedeen in xitaa wixii yaray la igeenin meesha dadka lagu xiro oo meel gooni ah lagu haystan muddo ah aakhir waxa la ii soo daayay ama la igu soo daayay markuu Sharma Boy wax walba oo fasaxay oo dadkii farta ka saaray oo yiri nafsadaada iyo YouTube xun waxa ka qaalisay nafsadaada kadib ayaa la isii daayay buu yiri kadibna waaba kan soo carro ilaa ka soo dhacay ee sheeg muxuu ahaa meeshan iyo Garowe ka soo dhacay bal ilaaha man kugu dhaariyay inan ka yar oo aad dhali karto waxaan ku hadalnaa garamayno
xaqiiqda dhabta waxay tahay aniga like maanta haddii arrimo qabiil iyo orod iyo ku jiri lahaay like muqdisho joogi lahaay reerkeyga walaalahayga iyo dhexgal lahaay like laakiin hadda arrin qabiil ma taagna meesha maanta garwaa joogaa like aniga oo halkan imaada wallahi billahi talaahi waxaa la isku dayay ma fahamtay asagoo dadka laga dhaadhicinayo programka oo sharma accountiga si qabiila lagu bixiyay waxa watay ragga wada ogtihiin ma fahamtay waxaan aniga nireeway in dhibaateeyo doona markii la dhibaateeyay in la dhaho sharma iyo tolkiisa iyo reerkiisa dileen laakiin arrintaas ma aan arrin qabiil madaxda isku galiyo waa la difaacay soo jeedna sax xawadka li garaacday ma fahamtay so maanta like wallahi billahi talaahi hal mar ya like walaal iyo tol iyo qof kastoo ila soo xiriir aniga mar walba xadaay out akatiin programkaani sida aad aragteen wiilka inanka yar oo maanta hadda soo qaangaar dhibaatada loo geystay ama inta loo geystay xitaa wuxuu yiri haddaan rabo qabiilnimo iyo haddaan rabo uu yiri waxaan hoos gelin lahaa uu yiri dadkayga oo xamar joogo laakiin soo xulba waxa asna kala qiimo badnaa kala weynaa weerarka Sharma Boy oo u tago oo agtiisa soo fadhiisto ee soo wada sheekaystaan calay xaasil waxaan rabaa inaan inta aan uga diro dadka Soomaaliyeed dhalinyarta Soomaaliyeed wiilasha hadda wadanka u soo korayo gabdhaha inta dadka Soomaalida oo dadka yiraahdo waa gacan qabanaa qof hebel waxbaan si war walaalayaal qofka wax aad siiseen lagama taba tago qof waxa siisay waa sad u siisay ha ahaato qofka lagu magumeysto wiilasha yarka dhalinyarada ah dadka fanaaniinta fanka soo galayo qof walba aad wax siiseen walaalayaal waxa ka daba tagnina shalay waxaan waa soo qorteen haddaad lacag ku qaadatay haddii ay sheegtay free aad ku siisay waxaan waa bixisay xalaal calay dhalinyarta lagu isiinin war wiilasha yaryarka oo wadanka u soo kacay mustaqbalka wadanka war yaa lagu isiinin war ha la isku naxo war ha la isku turo dadkiina waa weyn oo daahir cali soo kamid yahay asxaab badan kasii kamid yihiin kuwa badan oo arrinta dhinac walba u saarayo war walaalayaalow inanka yarka ah Sharma Boy waa aragteen soo dhalinyarta yani ugu hagar baxay oo ugu heesay oo caajiskii ka qaaday dhalinyartu hubka qaada laheed ama isbaarada dhiga laheed si uga soo jeediyay oo u maaweeliyay hadday noqoto xagga wadaniyada hadday noqoto xagga fanka hadday noqoto dhinac walba xagga waxbarasho hadday noqoto dhinac walba wuu Soomaali wuu ugu heesay inanka inaanu gacan qabano waa dhamaanteen qof walba oo Soomaali ah waxaad bixisay weligaa ha ka daba hadlin waa ceeb waa doqonnimo waa sharaf xumo Sharma Boy walaalkeen guuleyso deeq darajo guuleyso Soomaali Maxmedna waxaa leenahay dadka mar walba meel dhinac walba sacab loo u tumeen aynu joojino xaqa ayna dhinaciisa aadno qof xaq dara ku socda inaan maanta u gacantuno u sacabtuno wax ma noo tarayso insha Allah inanka inamada dambe soo bixi doon iyo kuwa joogaba aynu garab qabano gacanta aan wada qabsana dhamaanteen waxaanu leenahay inta xun inta bugto inta xaasidka ah inta horumarka bil aadnimada ka soo horjeedo hoos